asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan bulshada soomaaliyeed meel baa dunida ka joogtaan kusoo dhowaada naajix waa madal aan ugu talagalnay dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ardada u fariisanaya imtixaanada shahaadiga inay ka faa'iidaysan doonaan kuna diyaarsan doonaan imtixaanadooda si ay u galaan imtixaankooda si ay ku dheehan tahay kalsooni naajix applicationkan waxaa weeye application kuu saamixi doona insha allahu tacaala imtixaanadii hore ee shahaadiga ah ee hore loo galay inaad practically aad u hesho si toos aad u practical garayso si aad si saxan aad ugu fahanto imtixaanada soo socon doonaane qaabka ay yihiin aad ogaan doonto waxaanu isla arki doonaa insha allahu tacaala si seba qaabku noqon doono ugu horeyn waxaynu ku bilaabnay imtixaanka federaalka aynu ka bilaabnay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynu ku soo biirano imtixaanada shahaadiga ee puntland iyo somaliland intaba hadda waxaynu ku bilaabnay ardada form 4ka primariga ardada sanad ka qalin jabinayeen oo ku soo biiran doona insha Allah taala hadaba hal ku dhigana waxa way ku guulaysan imtixaankaaga oo noqon naajix waxaynu ku garab taaganahay saad ugu najixi lahayd imtixaankaaga biidin Allah taala ardada toobka dunidana waxay isticmaalaan similar application noocan kale ay isticmaalaan ardada Soomaaliyeedna waxay isticmaali doonaan naajix app si ay ugu najixaan imtixaankooda hadaba practice makes perfect marka walbo practical garayso waa mar walbo perfect ku soo noqon doonto khatar ku soo noqon doonto guushaadana ay halkaan ay ka bilaaban doontaa u train garay sida ina imtixaan dhaba aad gali doonto insha Allah taala hadaba waxaynu kugu soo darnay prepare maanta norhara u diyaar garow si smart ah khibrad iyo maskax ay ku dheehan tahay si adag oo xooga maahan oo maxay yeelay haddii aad wax badan aqriso ma ogido mubtid waxa kan inaad taqaanidin kala mubtid laakiin markaad istijaabiso waxa ku soo baxaya meesha ku fiican tahay meesha ku leedato iyo halkaaga sidoo yahay hadaba practicalkan ayaa ku imtixaankaaga si practical u heli doontaa insha Allah taala hadda waxaan u diyaar imtixaanka federaalka aan u diyaara magacaygu waa Ciise Shaaciye waxaan ahay double master artificial intelligence iyo MPA waxaan application noocan oo kale in badan waxaan diyaariyay organization aad u badan waxaanu door bidnay inaan markaan aan u diyaarino bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ardadeena si ay u noqdaan kuwa ku guuleysta imtixaanadooda programkan waa affordable qof walba uu awoodi karaa waa $2 kaliya bishii hadduu qofka bixiyana $10 wuxuu heli doonaa hal bil oo free ayuu heli doonaa oo 6 bilood ayuu programkan si toos ah u qaadan doonaa hadduu aalidmo haddaan u gudubno imtixaanada inuu diyaarsan hadda aynu isla aragno exam portalka 2025 aynu isla aragno waxaynu arkaynaa in maadooyinkii 12 maado halkan ku wada jiraan dhamaantood haddaynu isla fiirino midaynu u eegno tusaalahan kale luqada carabiga imtixaankeeda haddaynu isla aragno wuxuu ka kooban yahay imtixaankii caadiga ahaa ayuu ka kooban yahay 45 daqiiqo ka dhignay si ardayga uu practically oo 2 saacadood marka la siiyo oo ula jaan qaadi karo bidinillah imtixaankaaga bilow halkan ku dhufan doonaa qaybta waxay ka bilaabanaysaa in passage yar la aqriyo dan casharadii ay ku jiraan hadaba erayga karam maxaa ka soo horjeeda tusaalahan waxaa ka soo horjeeda bakhiilnimo hada ku dhufno waxaa noo soo baxay jawaabta saxda ah sababta saxda uu noo sheegaya maxaa yeelay karamka waxaa way deeqsinimo iyo bixin wuxuuna ka soo horjeedaa bakhiilnimadana waxaa way al-imsaak wa cadam al-infaq qofkana wixii haysto uu san bixin wixiisa hada su'aal labaad isla fiirino kalimadan i'raab tatawucan eraygaas tatawucan i'raabkeeda muxuu noqonayaa haddaan dhahno tusaalahan kale mafcuul bihi way tusaalahan jawaabteeda waa khalad jawaabta saxda waxaa mafcuul liajli way sababta uu noo tawdiixinaya waxa weeye sababta sida loo sameeyo waxa weeye tatawucan baa loo sameeyay oo sababka loo sameeyay saas muxuu waxaan u bixinayaa sababta uu bixinayo jawaabteeda waxay ahayd tatawucan saas darteed waxa loo dhahay mafcuul liajli imtixaanadu idin aad su'aasha labaad banu marina ilaa kuntu su'aalo saas ay ku jirta markaynu dhameeyno maxaa inoo soo baxaya ayaynu isla eegi doonaa waxaan ku qabanayaa boos su'aalahan boobsiinaya si aan isla aragno insha Allah taala wayahay waxyaabaha kale ee applicationka naajix oo cajiib kaliya waxaa ka mid ah in haddii imtixaanka markaan aad gasho marka labaad waa wuxuu kala bedelayaa optionskii juiceska lagu siiyay ayuu kala bedelayaa oo micnaheedu waxaa weeye haddii tusaalahan oo kale qofku uu xifdiyo bay ahayd tan koowaad tan labaad b ahayd su-aasha labaad ama imtixaanka markaa taa dhammayso marka labaad gelayso wuu kuu kala bedelayaa si fahamkaaga ku aadan maadada oo kor u kacdo
waxaanu ka aragnay kontonka su'aalood baynu ka aragnay waxaa noo soo baxday natiijada 24% baa noo soo baxday hadal dhiirigelin ah halkan ugu leeyahay isdhiibin su'aalahaaga dib u fiiri waxaa qalada arag 12 su'aalood ayaan hadda ka taxnay kontonka su'aalood waxaanu fiirinaynaa dhammaan waxyaabihi qalada fiirinaysaa markaad xifdiso marka labaad imtixaanka gelayso waxaa keeni doontaa 24 hadda keentay mid ka wanaagsan keeni doontaa sababta ay tahay waxaad ogaatay meelihii khaladku ka jiray waxaad ogaatay meelahaad ku leedato waxaana fahamtay imtixaanka ama casharka si saxan ay halka u fahamtay marka qodobkaas waa qodob muhiim ah haddaynu dib ugu laabanno imtixaan kale isla eegno waxaan fiirinaynaa imtixaanka xisaabta wuxuu ka mid yahay imtixaanada ardaydu inta badan ay ka cabsato waxaan isla arkaynaa imtixaanka xisaabta isana sidee baan u geli karaa ama muxuu ii siinayaa tusaalahaan kale su-aashaan la weydiiyey anaano lesay explanationka step by step u kala qaaday waa rectification buu number 1 sameeyey z wuxuu u taagantaa baa la dhahay a plus b I bay noqonaysaa marka step 2 wuxuu geliyey maxaa la yidhaahdaa equationka ayuu toos soo qaatay step 3 ay wuxuu u taagan tahay minus 5 halka b ay u taagan tahay 6 haddaba jawaabta saxda waa 6 tan haddaynu isla aragno sum rule for cos a plus b iyaduna maxay noqon doontaa mid aan iska doorano waxaa noo soo baxday jawaabta saxan inay tahay tan explanation ayuu ka bixiyey step 1 wixii la samayn lahaa step 2 wixii la samayn lahaa su'aal walbuu laga shaqeeyo sidaan ayuu qoraya midaan aan isdhahno lesay 2004 iska dhano waa sax sababta calculation marka la samaynayo wuxuu dhahay haddii decrease lagu sameeyo 15 boqol ay wuxuu ka jira 15 85 ay noqotay decimal place buu ka dhigay 0.85 da waxaa lagu dhiftay meeshaan waxinaysanay waxaana soo baxday natiijada su'aalaha xisaabtana qaabka noocaas ah hadduu qofku garanayn xataa si step by step uu fahmayo ayuu halkaa ka heli doonaa marka waa application dhammaystiran aad ka fahmi doonto imtixaanadu idil ayaa sidaa kuugu diyaarsan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noqoto qofka xiga ka faa'iidaysta waxaan isla arkaynaa natiijada ugu dambaysa waxaa inuu soo bixi kara iyadana waa sidii hore oo natiijadaan isla arkaynaa waxaan u jeednaa natiijada hadda aanu keenno waxaa weeye 27 oo 15 saalan ka saxnay 55 haddaa dib u fiirino dhammaan su'aalihii aan soo qaladnay ama kuwii aan saxnay mid walba sharaxaadeeda waa la socotaa dib aad u fiirin doontaa aad u geli doontaa aad u arki doontaa meesha aad ku leedato insha allahu tacaala applicationka waa applicationka kuu suuragelin lahaa biidn illahi tacaala in imtixaankaaga aad u gasho si kalsooni leh haddii aad dib rabto inaad u gasho imtixaanka ritaanku baa dhihi doontaa taana waxay dib kuugu celi doontaa imtixaankaagii inaad dib u gasho waxaan rajaynayna insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaysan doontid oo aad ku guulaysan doontid imtixaankaaga haddaba badanteena waa naajixab inaad ka faa'iidaysato ku soo dhowo naajixab si aad ugu najaxdo imtixaankaaga